wadriyootaye runtu waa maxay. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج كأني درس كأني لبعتنات يعني كوب ذكرنا مانتا وادريوتي محي كلها هاي أما فسرات دي ريوينكا. وحين عاوة كبلوا بيننا زادي إنه كنا زلزال كو حوية ودول قريرك إلهي سبحانه وتعالى نبت قريه سيدي كي شبان كل دعاي إيه تسونامي إيه وحياله لم ذا دول قريرك إلهي سبحانه وتعالى وعلى مذاه إلهي سبحانه وتعالى يا هذيسة إلهي نقبت بهذيو قفك كوري هذا زلزالك وقفك مؤمن كأ ابتلاء امتحان بوياهي محنة بوياهي محنة أسوا محنة يرو عابرة ويسكتك الدونتا واختيار كدب إلهي سبحانه وتعالى نصرك وكين الدونا أركت هذا لا أركي مركع دولك أو دول قريرك وكردعي dhulka oo dhan ama qarax dhulka hoostiisa qarxay oo midna ba farkeeno iyo waxyaalaha lamida u qarxay taasi waxay cadeynaysaa iqtiraab saaca iyo qiyaam saaca oo soo dhawaaday kulli bana saacada waqtigeedii aad buu soo dhawaaday calaamadaheedii yar yaraay oo dhan inta badnaa waa la arkay calaamadihiin ka weynaa loo diyaar garoobo weeyaan adduunyada waa iska dhamaad baabad soranaysa ilaahay subhanahu wa ta'ala khayran ugu khatimay tayib zawaaj guur bayna ugu xiga guurku marka la riyoodo guur lagu riyoodo في المنام والسعادة والليبان يبرار ويان وهنا استقرار يحسلوني يدقناشو وعلامات خير يهرمرين سيجارة هانيت قول كاسدو قول إسلامية أو وناكسن وياهي أما قول كالي سكورسن ياهي بين كالي دبال دقيا أديو ياهي قول يعني لدعي سنة يو أون اختلاط رجدو مرسلح عرية آني كرين وميوسك فربضان إيو دربان إيو وحي لمدي آني كرين وحي بدعي قول كسهور كذا أما بدعي كمذا آنو كرين أيا رنتي آدي آدو وناكسن وأنا علامة آدو قرح بضان قول كاما بين كاروس كادعيا أديو ياهي عروسحن ورجدو مرنا يسلح عريان أون لكلا أسطرنين oo muusig iyo saxab iyo qayla iyo buuq iyo waxaan ilaahay raali ka hayno oo leeyahay taasi marka waa musiibo iyo fitno ilaahay subhanahu wa ta'ala dhamaanteeba taayo wixii la midaba allah inaga badbaadiyo taa waxay noogu xigtay saliid زيت أما سليد aragtideeda gidigeed waa nuur weeyaan waa hidaaya weey wax weey waa guidance waa hidaaya weeyaan waa toosin leestoosinayo weeyaan waxa weeyaan daliil iyo calaamad buu yahay nimcada ilaahay subhanahu wa ta'ala ku toosnaanta diinta ilaahay buu calaamad u yahay caafimaad buu calaamad u yahay saliidaas oo la dhaashado ama la ismariyaa waxay qofka ismariyay xoolo fara badan inuu helayo ay u tahay arsaaqad fara badan inuu helayo tahay caafimaad inuu helayo marka xanuun ka dib inuu caafimaad helayo tahay qofka hadii uu cabbo sida biyaha uu cabayo oo kale waa arrin ka soo horjeeda soo yani khilaaf al-ma'luf arrinta caadiga ee la bartay waa arrin ka soo horjeeda qofku sida biyaha uu cabayo inuu saliida uu cabo marka taasi waxay calaamad u tahay ibtilaa ama imtixaan qofka bini aadanka sugaya ilaahay imtixaan khayr qaba ka dhigo hadii qofku ku riyoodo zaytuun ama زيتون كمان كنا نسام وحوية وجيت كان أوليف كلا يلاحظوا أمر دران معها زيتون كان صومالي زيتون كجوافها هي زيتون كوتقانا كان كوشيء منه لكن كانوا شيء إنه أوليف هذا أما أوليف أويشها لا استعماله ليسكدوه أما مضح المريو أما عنتظر على قدر صدا أما صلر كلا قدر صدا كاسين كهلينا زيتون كمثلا فلسطين وكلا حوق لوجه لا إسبان وكلا حوق لوجه لا كواليتي يسوى نفسن أركتي زيتون تلا أركيا أما جيت زيتون تا وأركتي بركيسن وجيت ونفسن أو طيبة أو بركة يبشارة شيء وحو عضينا يا قف كاركتي ذا جيت كلا أركيا إني علامة طي بركة حق حولها يحق هلك يولد كوكله أحواش الزيتون كأردن بيرد هالنقطة عنتان هالنقطة معي هذي إن قف بلادك مثلا بنتو جوجوية أما العصر دي سهل نقطة إيبكي سهل نقطة جناسي سهل نقطة جد وخير الحمد لله وريو يكون هناك وريو هناك سويان لكن وحن إنه قفوا كريو زيتون كاسو انتو دميي قراد او نقضي تاسي مركا وحويا نولشا ايا وحيالا ايا قفك بنادك كو دعيا لكن waxaas wax in badan soconaysa insha Allah ta'ala ma aha cabitaanka zeytuun la cabaa ee sida biyaha loo cabaa waxay daliil u tahay sixir weeyaan qofka cabaa sida qof sixran ama la sixir doono oo kale ilaahay naga badbaadiyay ay tahay ilaahay baana cilmiga og cunitaanka saytuunka la cunayo ee tiinka la cunaya waxay bushaaro u tahay xajka
xaj bay bishaaro tahay qofkaas inta badan waxa lagu fasiraa xajka waxyaalaha la fasirayo yani wixii wax dee sidaa loo fasiray ama barnaamijkan soo sheegaynay oo dhan waxaasi waa waxa oo kaliya inuu ma aha dad kala culimo kala si kala u fasiri karta culimo kala arintaasi waaqiceeda iyo arrimo kala eegayso u fasiri karta laakiin fasiraadii kutubta ku jira wixii ugu macquulsanaa ayaan baan insha Allah ta'ala idin soo bandhigaya taariikhdeena saa ku ogaataan ayaa muhiim insha Allah ta'ala zina waa sidii tii horena waynu yaro taabanay zinadu waa quruxda iyo dhalaalka zinadu waa fitno iyo shahwad la dabagalo iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala sabiilkiisa iyo dariiqiisa oo laga weecdo ama laga sii jeesto haddii markaa zina la arko oo dadna ay meesha ka qaylinayaan waxa weeyaan ama geeri baa meesha ka dhacday ama diintii baa laga baxay qolooyinka zinada iyo dhalaalka xaadiray ee joogay زينات كلية مويانة زينات كلية وحويان خيرك إيه إيمانك زينات أي قروح ذا كلية وحويان قلبك زينات قلبك وحكونا أكسن هما يراتي مجرته إلى قلوب تهينو زينه كذلك أدي قروح بدن لبصيو زينات أما أتقفسي الصو قف كاسي حوله إيو ولد أيو إلهي سبحانه وتعالى في سكيلية إلهي محويلي المال والبنون زينة الحياة الدنيا رباسي وزينة قروح يعني عندها قروح أي وتهي سيد الله سبحانه وتعالى من وشهي كدب زرافة بين وحيك حيوان كان دير قرية لا يلاحظه حيوان كاسي أركيز هردو وحي لغو في السراء كبر قروح بضن أو مكانات يستاتس مجتمع كله ومجتمع قيمة كله هذا المركز أركتيد إن هذا عنتسيني سيد قرية قاعد عنتسيني سو وذكر سنتون تاب وحال أذكر سنتون تاب كبر قروح بضن وصالح هذا أو نكسر حول له haddaad aragtidina gabadha ama haddaad aragtidina garigaasi kaasii jeestay waxa weeyaan ibtilaa waa ibtilaa iyo imtixaan xagga shaqada kaaga imanaya ama xirmaan waxyaalaha doonayso aad weydid ayay tahay kadalika calaamad ay u tahay taa waxaa inoogu xiga zuraarka waxa weeye waa imka badhanka toobkaas aad arkaysan toobkiga badhamadiisa ayaa ziraar la yidhaahdaa waa zir jamcigiisuna waa azraar weeyaan calaa wasn afcaal زر أزرار فعل أفعال أركتدا لا أركو بدمضة وحويان وحكى لما قناة أو ليسو كينام ولا ليسو تولي مركا وحليلي أدي بدن كاسي meeshiisii lagu adkeeyo lagu talo taasi waxay cadeynaysaa qofka aan wali guursanin inuu guursan doono badhamadaas haday macdan ka samaysan yihiin ama bir ay ka samaysan yihiin ama dhagxaantan kariimka ah ee qaaliga ay ka samaysan yihiin waa haybad iyo waatan lagu rakibay waxyaalo dhalaalaya marka taasi waa haybad waa magac waa waqaar waa sharaf ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa ah haddii qofka baniaadamka ku riyoodo badhamada ka mida oo qofka baniaadamka ka dhacay taasi waxay cadeynaysaa waa kala tag iyo furitaan كم هاي نوجو حجة سنجبيش هاي نوجو حجة سنجبيش وقالن سجيت كان سنجبيش هذا باشاه عبين وسنجبيش عبا سنجبيش سوى جيت بركيسان ولا أكسن قف الله عليه قف كي سنجبيش أركا وحويان أمين وعبي أركا قف كاسوا قف أمنيات وإلهي سبحانه وتعالى ويديستد هلية وقف سعادة وناجب يبرر كوريون كون نورانية قف كوريودين وزنجبيل يبسذي waxay bushaaro u tahay in ilaahay subxaanahu wa tacaala raaligelintiisii qofkaasi uu helay qofka ku riyooda inuu dadka sanjabiil u shubayo oo casay sanjabiil biyo lagu walaaqayo kulul ama qabow siinayo qofkaasi dadka diin buu sheegayaa cilmi buu sheegayaa xaq uu sheegayaa diintoodu ku hanuuninayaa ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا أي ربي سبحانه وتعالى أويلي تاوحي نوغو حكتا زفير أما نفتورد ويان زفيرتو مركز زفيرتاسي waxay calaamad u tahay nolosha qofka bini'aadamka inta markay u dhinto halkaas neef uu soo gelaysiyo ka baxaysato wala ma jirto marka hadii marba qofku ku riyooday neeftooriga iyo zafiir taasi waxay sheegaysaa calaamad nolosha ay u tahay waxaana ku xiran tahay kolba jawiga iyo bi'ada ku haraysan ama u dhow hadii hawada marka hawo fiican ay tahay jawiguna uu fiican yahay u degan yahay taasi waxay calaamad u tahay caafimaad iyo khayr ayay calaamad u tahay waxay calaamad u tahay najaax iyo falaax iyo fawz qofkaasi iyo inuu nabadgelyo helayo hadii laakiin neeftooridaasi ay noqoto mid si qasaba ama si naxdina kaaga soo baxday taasi waa inxiraaf
وكويعد يفساد قفك بنادكي كويعدي أمرك إلهي سبحانه وتعالى قفك دو زبور كرياضه زبور وكتبت إلهي صدري وكتابك نبي داود لو صدري ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أبو إلهي وآتينا داود زبور أبو إلهي سبحانه وتعالى يلي مركز زبور كاسية أخرتيسو وريوني كريوني كوفي عم بكمديهين وهي ورهي خشوع وضطة ورهي إخلاص وضطة ورهي لك عبسي وضطة ورهي قفك بريادك يدي وكريوضو الزبور سواء ما أخرية ما اكتساء لو أخرية ما ميليا لا ولهذا وكتابك الزبور ليلعه ودرجات صالحين تأونا هلان أي أخرستان ويان عدو مركار كإمامك مسلمين تا وأخرية زبورك تعسوا بشارة ونكسن إن جماعة مسلمين تو خلاف كل حدود وكل حبيح دونه منهاج ونكسن أي خير ونكسن أي هل الدونان أدي أو إلهي سبحانه وتعالى إدمام يالو قفك أدي وكل رياضه زبانية وجهنم ملائكة إلى لسا جهنم الله ينقبض باريه نعوذ بالله من النار وحال أهل النار أدي مكان لغو رياضه زبانية ذا أما ملائكة النار إلى لنيسا تاسيوات دقنين قفك بالله كان لو دقيو ولا ليه إسكا إلالي هوشا ساكرته أقلن إسكا إلالي لا يكابد باريه تاوحين وحكته قفك هدو زقوم كوحوية وقيد أما وحوية أهل النار يعني وحوية وعذابت أهل النار وقيد كوية أهل النار تا جهنم وعذابت أهل النار عذابت هذا كم ذا إن زقوم يعني عن الدوران إن شجرة الزقوم طعام الأثيم بإلهي سبحانه وتعالى يلي إلهي نقبت بهذه إلهي كان هاي نقيه والنعيم كذي يقول حذي وحي ولا سناي لقعني إلهي نفض هذه قيد كاي قيد الشلم ذيك نارتنا إلهي نقبت بهذه والنار إلهي سبحانه وتعالى أنت ندقي سنة سوى دن إلهي وجهنا النار تهي نقبت بهذه شنظنا إلهي سبحانه وتعالى سفضت إلهي نقيه آمين marka aragtida geedka jahannamo ku yaala zaquum aragtidiisu waa digniin in qofka ku riyooday ay tahay inuu weecadka iska ilaaliyo uu xaqa garto uu jahannamo iska ilaaliyo oo uu ogaado noloshu inuu wali nool yahay noloshuna ay jaanis tahay fursada inuu ka faa'iideysto maxaa yeelay gacantiisa ku jirtaa taa waxay noogu xiga حرفي وحين وحي زكريا نبي زكريا قفي كريوضة يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى فلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا آياتها نبي زكريا وبدين رؤية النبي زكريا لا أركع والرؤية اللي قفك اللي غب شهرين أيه أولاد إيه ذرية إيه أرساقد واسعة قفك أركا نبي زكريا حق وأركا وقف صالحة أو مسلمة أو تقية مكا هبط صدى حسناتك وقف حسنات بضنبط شقيستي حسيب صدى وعمل كيس صالحة ويلك كسيد بوحيو سي آخر هذا مع سيدنا إسكا إلاليو سي آخر هذا والله سبحانه وتعالى اكتيسا وحو ناكسنوك وقهلو وليس هذه من كتشنا زعفران كما قرنيسان dadka bari shaahay ku darsadaan dadka bari maxay hayday bariiska ay ku hagaajistaan waa qaaliyo inta badan lama gooyo intii seerinta leeg baa lacag fara badan zaafaraanka aragtidiisu hadii lagu riyoodo ama la iibsado ama la iibinayo ama la cabayo ama wax lagu qorayo waa doctor marmarta xitaa wata ayada quraanka lagu qoro qofka xanuunsanaya la siiyo waxa soo dhami waa khayr marka zaafaraanku waa caafimaad qofkii arka isagoo xanuunsanaya ilaahay caafimaad buu ku siiya qofkii kurbadaysan ilaahay subhanahu wa ta'ala kurbadu kaga fayda قفكي بلا أرزاقد أي صعلوك إلهي سبحانه وتعالى أرزاقد بكسية قفكي سحرا إلهي سبحانه وتعالى سحرك كجا بالبادية وانا سيرد وناكسن إيه مقع وناكسن إيه يعني فرج حق إلهي سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى يعني خير كيساي نسيه قفكي زهور تأما كريوضة فراول قفكي كريوضة زهرة حياة الدنيا ويان ونرى دلالك دويدة كمتهاي حق الحولها إيه متاع دمرك أولاد إيه جاه إيه منصب كيوحي لمدا مركا كلبا وبحاسي كلرك ويهاي انتو ليجي هابي كحرانتهاي قفك السيدة كريوضة إنو السيدة أبح وعلامد وناكسن وبشارة وناكسن لكن قفك وانو مكا قروح بالنظر للالالة لكن انتي مثلا بوبحاسي مبح مثلا بدنتي ويهاي او فورره او اما مقدي اما مذو اما كلركيسي وكتغي تاسي وهمي غمي الهي سبحانه وتعالى بدبادها ويديستو qofka zina ku riyooda isagoo zinaysanaya ama isu tag ama galma xaraana deedeeya ama ku jira waxa weeye waa dalaal iyo wada ka leexad iyo wixii saxa qofka walaadka inuu ka fogaaday qofkii marka ku riyooday inuu zinaysanayo wal ciyaadu billah waxa weeye qofkaasi xoolo xaraana ayuu ku dhex jiraa xoolaha marka zinadii lagu fasirayo waxa lagu fasirayaa xoolo xaraana maalan xaraaman waxay ku tahay inuu ilaahay ka baqdo oo ka toobad keeno oo shahawaadka adduunyada ee zaa'ilka ah ee iska tagaya inuu iskaga taga weeyaan
inta aanu dhimanin inuu iskaga tago weeyaan marka qofka zinada ku riyooday waa qof lacag xaaraan ama xoolo xaaraana dhex dabaalanaya qof zamri iyo hees durbaan iyo hees iyo music ku riyooda waxa weeyaan waa qof codkii shaydaanka maqlay oo shaydaanka codkiisii ku riyooday dhageysigiisa iyo yani dhagta in loo nuguliyaa waa faasiqnimo dhageysiga lahwiga iyo heesahaasi waxa bani aadanka dhagtiisa waxbuu yeelaa diintiisana waxbuu yeelaa qalbigiisana waxbuu yeelaa fitan fara badan bay markaa calaamad u tahay inuu qofka bani aadanka iska ilaaliyo qofka markaa waxaa ku jira waa qof fasahaad iyo fitnad dadka fitnadaynaya in la iska ilaaliyo weeyaan isaguna uu iska ilaaliyo ilaahay subxaana wa tacaala usoo noqdo qofka aaladaha ama kaman ha noqoto ama biyaana ha noqoto ama waxyaalaha la gargaraaceed ee musica ha noqoto waxaasoo dhami waa hubka shaydaanka hubkiisa weeyaan shiqaaq iyo shaxna iyo xumaan buu qofka baniaadamka qalbigiisa geliyaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu ka fogeeyaa waa inuu xaaraanta iyo waxaa iska ilaaliya weeyaan ilahay wuxuu yidhi min annaasi man yashtari lahwa alxadiidi liyudilla can sabiili illah markii lahwa alxadiid يعني حديث كبنتيسا iyo ciyaartiisa markii la isweydiiyay ibn mas'uud saddex jeer buu ku dhaartay wallahi innahu al-ghinaab yiri wallahi waxaan ku dhaartay dadkan iibsanaya lahu al-hadithki waa dadka heesaha dhageysanaya ayuu sheegay marka waxaana culimadu ama lagu fasiray qofka bini'aadamka heesuhu in qofka bini'aadamka qalbigiisa ay nifaaq iyo yani ay qalbigiisa ay xumaan iyo zino iyo dhibaatooyin fara badan ay geliso sida mesela biyaha marka lagu shubo dhirta ay wanaag iyo qurux iyo dhir ay laga faa'iideysto ay u soo saarto saas leeg weeyaan tayib waan kulli soo koobi doonaa waxaan ku kadaalka inuu xiga zakat qofka hadii ku riyooday zakay isagoo bixinaya oo kale zakada hadii lagu riyoodo inuu qofku bixinayo oo aanu mancinayni waa calaamad wanaagsan waa calaamad farxad leh waa calaamad bushaarada oo lagu bushaaraysto weeyaan waxay daliil u tahay qofka ku riyooday in qofkaas qof xoog diintiisa xoog ku ah oo arkaanta islaamta rukun ama tiir weyn oo islaamka qof meel iska dhigay inuu yahay weeyaan taasi haduu qofku taajir yahay oo ku riyooday inuu zakadiisa iska bixinayo qofka maksab fara badan iyo macaash fara badan baa u soo socda oo tayiba oo xalaala oo ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli ka yahay haddii qofku xarig yani maalan xiran yahay uu jeel ku jiro uu ku riyooday isagoo zaka bixinaya qofkaas dhowaan baa jeelka laga soo saaraya oo ka soo baxaya qofka dumarka haddii ay ku riyootay inay zakaatulmaalkeedii ama dahabkeedii zakadiisa iska bixinayso haddaanay xaas lahayn qofkaasi waxaa loogu bishaarinayaa inay si degdega ay u guursan doonto haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu raalli ka noqdo haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu raalli ka noqdo xalaqadii walaalo waxay sheegeen sidaa ay ku dhammaatay intaasaan insha allahu tacaala ku soo koobaya intaan kulmi doonno habeen dambe xalqada 12aad intaan kulmi doonno ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan idinka baryayaa cizu dunya wa cizu alaakhira waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa fii amaan illah waad riyootay runtu waa maxay